السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا arkadaşlar, hoş geldiniz. Kusoo dhawaad channelkayga Marin Teaching Channel. Magacayga waa Maryama. Maanta waxaan idiin soo gelinayaa abirka unitkiisa lixaad jee casharada ugu dambeeya insha Allah. Mar dhow inaad dhameeyaa rajeynaa. Buuggan aan ka baxna asaga dhan dilbligiisiisana gaar ah u soo geliyo ku jira Turkish grammar, abir Turkish grammar ah ku qoran playlistiga gala. Dadka markasta way soo weydiiyaan casharada si iskugu xigaan meesha ku jiraan. Soo markaa channelka aad soo gashid meesha sawirka channelka aad ku dhufanaysa oo sawirka saaraya. Markaa ku dhufatid muxuu ku tusayaa videos community another one maxay ahayd playlist waxaasoo ku tusaa. So playlistiga ku dhufanaysa. Markaa playlist ku dhufatid muxuu kuu soo bixinayaa marka magacyaa ku qoran. مثلا آيك الدرسي وعشرة آيك تركش جرامر بوك لبعض جرامر كسمال جارو كتشري عشر كواد إلا دماتك بيركس دوكله بيركس دوكله بيكي جو هذا عمضة جرامر كيس دوكله سو مركز أهيل كرتين إن شاء الله وحبينا فانتين مركب بلاي ليست كتاجا مقع قرن ماشي مقع مكو قرن هاي بوجاس باكو جر وحق لكم يجران سو إن شاء الله ما تروح سوق لنا يا دل بلكسها قيبت محلها كارشلش ترما يعني واسبربرديك comparison ما يدا English يعني comparison isbarbardhig laba shay ina isbarbardhigtid so kaarshalashtirma laha ama comparison so iyo maxaa jiroo kale comparative wuu jiraa isagana waa more than masala hebel heblaayo ka badan yahay hebel heblaayo ka dheeriya hebel heblaayo hebel way ka fiican tahay heblaayo kale way ka fiican so iki kavram arasinda kaarshalashtirma yapmak için bu yapı kullanır si laba shay la isku barbardhigo maxaa loo isticmaalaa shaka so maxaan dhahaynaa marka isim lagu daray dan isim waa taqaanaa soo fiil iyo isim aa jiro ima sifaat iyo sarf marka isimkii magacii shay magac ah oo magac lagu daray dan kadib maxaa la dhahayaa dahaa dan sifaad aa keenaysaa yani sifaadka waxaan waa adjectives English waxa la dhahaa waa sifaad yani muxuu qeexaa shayga aa sheegaysa muxuu yahay waa nuuce ma dheer yahay ma gaaban yahay ma qurxoon yahay yani waxa uu yahay ayuu qeexaya waa sifaadka صفات so ما adjectives English كلها so maxaa dhahaysaa then markaa ku darta isimka dahaa kadib bacdi sifaadka maxaa sheegaysaa yani qofka sifadiisa uu lahaa sheegaysaa masalan maxaan dhahayaa labadan qof isbarbardhigaa masalan example sidaad alidan dahaa challenge-kan sidaad wuxuu ka dadaal badan yahay cali so sidaad waa isimka kuwaad laba isim marka la isticmaalayo laba isimka kuwaad waxba laguma dara asaga isimka labaad oo dan qaadanayo waa midkan marka sidaad alidan dahaa alidan so ali maadaama uu magac yahay oo magac oo uzaal isim uu yahay calaamadaas saaraysaa danaa ku daraysaa ama dan macnaha dan waxay ku xirantahay shaqalka markasta injamiya masaklin ay ku xirantahay marka dahaa waa kanaha sifaadkii oo inii sheegay waa kanaha jalishkan muxuu yahay waa dadaal يعني hard work qof dadaalo oo jalishkan oo macnaha qof aad u dadaalo ama shaqadiisa ku fiican ama waxbarashada ku fiican jalishkan aa dhahaa so maxaan dhahay sidaad alidan dahaa jalishkan kee labadoo jalishkan sidaada jalishkan kan danka markasta waa midka laga fiican yahay so alidan dahaa so maxaan dhahay alidan dahaa so dan dahaa waa comparative isbarbardhig yani more than English meesha la isticmaalo more ama than masala then kan labaad maxaa la dhahay oo asaga ama ayada bendan dahaa genj asaga ama ayadu macnaha oo waa wiil ama gabar yani oo asaga ama ayada bendan aniga ben marka ben maxay noqonaysaa yani usaal isim maaha waa isim caadi ah soo maaha ben aniga adiga asaga yani so maadaama kan dhibic uma baahna marka waxaan dhahayaa bendan dahaa genj ayada aniga way iga yar tahay yani oo ayada bendan aniga dahaa genj way iga yar tahay ayada مثلا قفك وان كوينهاي ويجا وينتهاي ويجا يرتهاي ساسالو استعمالها إذا قبل الله هيركيس دن دها تشوك تشالشيور هيركيس دن دها تشوك تشالشيور إذا قف والبا ويكا شقة بدنته تشالش ماك واشقو so إذا قبل الله هيركيس يعني everybody تن أخذ درس أمرك هيركيس دن دها تشوك تشالشكان قف eedaa qof walba aad ayay uga dadaal badan tahay ayadaa aad uga dadaal badan dan maxay maane magaalooyinkaas la isbarbardhigo Istanbul waa magaalada Istanbul Ankaradan dahaa kala balik Istanbul waxay ka dad badan tahay Ankara so markasta isimka koowaad ayaa sifada iskale Istanbul waxay ka dad badan tahay ama ka jaan badan tahay Ankara because Istanbul iyo Ankara isku mid maaha waa magaalo ganacsi oo aad u dad badan so Istanbul Ankaradan dahaa
kalabalig maadaama ankara istanbul magac usaal ay yihiin waa in uu magac gaar loo leeyahay maanaa istanbul kale ma jirto ankara kale ma jiro cali waa cali soo saasoo kale waa marka kuma soo waa fahanteen kalabaligna waa jam ama meesha aad u traffic badan yani jaamkeeda dadku badan yihiin ucak waa diyaaradda tareendan daha hislidir diyaaraddu waxay ka orod badan tahay tareenka tareen iyo diyaarad ma isku ordo waa maya meeshii nus saac ku tagto tareenka waxaa laga yaaba 2 saac 3 saac inuu ku tago soo ucak tareendan daha hislidir hisli waa dhaqso soo ereyga sifaadka ah markasta waa hisli kalabalig çalışkan soo saasay noqonaysaa marka I hope inaad fahanteen dan haddii aa imaano qaybtan kale n aa la adeegsanaa meeshii la adeegsanayay then dahaa inta maxaa la adeegsanaa n superlative englishka waa adjectiveska yacni masala hebel ayaa ugu wanaagsan heblaaye ayaa ugu wanaagsan hebel ayaa ugu dadaal badan yacni halkaas qofaa wax walba ah wasaso kale hebel ayaa ugu qurux badan hebel ayaa ugu dheer so maxaa la iki kavramdan birini değerinden daha üstüne olduğunu anlatmak için bu yapı kullanır. Yani hal qof ayaa yacnaha wax walba inuu ka qaalisan yahay ama uu kasii fiican yahay ayaa loo sharaxaa oo kaleeto yani so inuu yacnaha dadka dhan uu misala ka qayn badan ka qurux badan ka shaqo badan so maxaa la isticmaalaya tan formulaheeda waa n aa isticmaalaysaa dan sifaadku waa inii soo sheeg waa kan oo kale jalishkan maxaa la dhahaye kalabalig hislidir so waa n iyo sifaad meeshii dan dahaa la isticmaalaya inta maxaa la isticmaalaa n sifaad n aa la isticmaalaya so dan dahaa n aa lagu bedelay so maxaan dhahaa sanifin n çalışkan öğrencisi Ahmed fasalka ardayga ugu dadaalka badan waa Ahmed sanifin fasalka ama gadalaaska n çalışkan qofka ugu dadaalka badan so inta maxaa israacaya sifaadkii iyo n so n lagu daro sifaad saasoo kale isticmaala so n waa tanaha çalışkanna waa sifaadkan so sanifin en çalışkan öğrencisi Ahmed fasalka ardayga ugu dadaalka badan waa Ahmed so qof walba asaa ka dadaal badan soma Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır Turki buurta ugu dheer waa buurta la dhaho Dağır so Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır yani buurta ugu dheer wadankan Turkiga waa tan so dağı waxaa la dhahaa buurta ama mountain buurta dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'dir caalamka wadanka ugu dadka badan waa wadanka China dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'dir wadanka caalamka ugu dadka badan waa xagee waa China arkadaşlarım wala saaxiibadayda arasında dhexdooda yani en çok goosday seviyorum yani saaxiibadayda dhexdooda markii la eego yani waxaan aad u sii jeclahay goosdi yani masala afar saaxiibo leedahay ama saddex isku mid ma ku ah qofa aad kuugu dhow saddexdooda ama aad ka heshaa yani qof bini aadan soo ay suxmeen laga yaabo inaad qof aad uga sii heshid intaas soo maxaa leeyahay arkadaşlarım saaxiibada arasında yani dhexdooda marka ayaga dhexdooda saaxiibada dhexdooda qof banaanka marka aadaysid yani en çok joostay sevier waxaan aad ugu jeclaa qofkan aadka ugu jeclaa marka saaxiibadeeda loo eego qofkan ugu jeclahay waa joosdi so waa ka shaqaynaynaa insha allah marka maxaan adeegsanaynaa dan dahaa oo laba qof laisbarbardhiga ama laba shay iyo midkan oo hal qof qiimihiisa uu saa'id yahay so maxaan dhahaa ashadaga boşluklar örneklardaki gibi durduralım sida örnekyada kale u buuxinayna masala asli laba isim marka meesha ku aragtid maxaa soo xasuusanaysaa inay isimdan daha ay tahay dan daha dan sifaat laakiin meeshii hal isim aa ku aragtid n iyo waxaa gelinaysaa sifaad wuu kugu jiraaba keliya n unbaa gelinaysaa wax kale laga maro ntaasaa gelinay sifaadka meesha war kugu keenay sifaad markasta ma gelinayno dan daha iyo maxaa ka rabaa n bis so masala maxaa asli gabadha asli dhaho oslem dan daha sayif asli waxay ka caataysantaha ama ka dhuuban tahay oslem so maxaan ku darayaa dan daha so kan lambarka koowaad waa dan daha and then xitaa ayaga oo bas calaamadda ku dhigan then daha intaan ubaa ku daraya then daha then nextiga maxaa la haddana Türkiye'nin kalabalık şehir İstanbul'dur wadanka Turkiga magaalada ugu dadka badan waa magaalada Istanbul so maxaan dhahay en kalabalık so tan maxay noqonaysaa en kalabalık nextiga maxaan dhahaynaa lambarka labaadaa ka booday so kan waa inaad tirtiraa
kana tagayna marka lambar si ugu wada aqmin kan koowaad waan ka shaqeynay kan waa iska dhaafaya kana imaana Murad Rajab Uzun Murad Rajab dan daha Uzun Murad wuxuu ka dheer yahay Rajab soo maxaan dhahayaa dan daha Uzun soo dan daha soo halka waa ka tiraa lambarka saddexaad oo ahaa kan saddexaad aan ka dhigayaa n dan daha Uzun soo waxaa imaanaynaa lambarka waa ka shaqeyso maxay noqotay Murad Rajab dan daha Uzun Murad wuxuu ka dheerayaa Rajab lambarka labaad Turkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'dur wadanka Turkiga magaalada ugu dadka badan waa Istanbul soo en waa ka shaqeey lambarka saddexaad waxay imaanay lambarka afraad ama dood surava waxaa la dhahaa jireefka yani gariga af Soomaaliga gari la dhahaa gari baalka oo aadka u dheer xoogaa geelo xoogaa dhirkiisa la yar eg yahay ama uu ka daba dhow yahay ama qoortiisa si xad daaf ay u dheer tahay waxaa la dhahaa gari ama giraffe Englishka giraffe la soo zurava la afturkiga zurava soo zurava dünyadaki en uzun hayvandır zuraafka waa caalamka xayawaanka ugu dheer because qoortiisa too much oo geel xitaa ka dheer asaga markii la fiiriyo geel inuu iska weynaa laga yaaba laakiin wuu qor dheeraysma soo zurava dünyadaki en uzun hayvandır caalamka xayawaanka ugu dheer waayo soo maxaan dhahayaa nextiga waxaa imaanay pesh lambarka shanaad kablumba waxaa la dhahaa diidinka yani bahalka oo qolofka weynka korka ka wato oo madaxa dheerka la soo baxo yani diina u garna aniga macnaha qofka waxaa laga yaabaa Soomaali kale inay u garanaysiin aniga diina u garnaa ama diina iska dhahnaa soo waa geed qolof weyn oo korka ka leeyahay lagu adeeg u qabaa madaxna waa kasoo baxsadaa markuu rabana qolofkaas uu dhex aruuraa wuu weyn yahay yani kuwii riska maaha ya kuwo kaloo qolof ku dhex jira way jiraan laakiin midka weynka ah oo cagaha waaweyn qabo qoorta meesha kasoo dhex baxsada kaasaa la dhahaa diinka kaasaa la dhahaa soo kablumba tavşan yavaştır tavşan waxaa la dhahaa isagana waa xayawaanka yani waa bakaylaha tavşan bakayle saasaan u garanaa kale waa xayawaan yar oo orod badan aad u orod badan masala haddii aan dhaho waa ina tusayaa sawirkiisa in af Soomaaliga fahmaysiin laga yaabo mogtahay aan inii sheegayo soo masala waxaan dhahayaa tavşan sawirka sidaa ina tuso waa xayawaankaasaa la dhahaa tavşan bakayle aan u aqaanaanay bakayle soo xayawaankaana tavşan la dhahaa sorry intuu ila aad xayawaankaana tavşan la dhahaa waa kanaha yani ana Soomaali kale u taqaanay laga yaabaa darteeda aan kugu qoray then maxaan dhahaynaa diidinka wuxuu ka socod gaaban yahay bakaylaha because diidinka wuu gurguurinayaa meel dheer maba gaari kara labada yaa orod badan tavşanka soo maxaan dhahayaa koblumdan yani waxaa la dhahaa koblumba tavşandan daha yavaştır diidinku wuxuu ka socod gaaban yahay tavşanka soo tavşan waa bakayla waa iska magac caadiya tavşan waa magaca uu leeyahay tavşandan daha yavaş tavşandan daha yavaş so tavşandan daha yavaş waxaa imaana aalta lambarka lixaad ojag waxaa la dhahaa bisha oo January sanadka bisha koowaad ojag ay bisha January hasiran soogtur bisha January waxay ka qabowdahay bisha hasiran bisha la dhahaa June la dhahaa bisha lixaad ee sanadka May June waa bisha lixaad ee sanadka hasiran la dhahaa soo ojag ay bisha koowaad ee sanadka waxay ka qabow badan tahay hasirandan daha soogtur because hasiran waa xilliga qabowga laga sii baxayo ojagna waa xilliga ugu qabowga badan wadankan soo maxaan dhahaa hasirandan daha soogtur okay nextiga inaan ku dheereeyo videogana ma rabin insha Allah waa bogsiin anigana imtixaanaada leeyahay waqtiga ugu yar
then maxaa imaanay lambarka 7 iyo d Antalya magaalada Antalya ee waddanka Turkiga Erzurum yani Erzurum magaalo kale la dhahaa Sıcaktır Antalya waxay ka kulushahay Erzurum ay ka kulushahay so maxaan dhahaynaa Antalya Erzurum'dan daha sıcaktır so then daha sıcaktır then daha sıcaktır lambarka 8 ama 8aad eed hilibka yemeklerin yani cuntada hilibka leh sebze yemeklerinden daha çok yiyorum yani cuntada hilibka leh waxaan ka cuni ogahay cuntooyinka qudaarta leh so eed yemeklerin sebze yemeklerinden daha çok yiyorum yani cuntada hilibka leh ayaan waxaan ka cuni ogahay oo aad u isticmaalaa yani marka loo eego cuntada qudaarta leh qudaarta yani Soomaaliya nahay qudaar ma jeclin soo maaha masala so cuntada hilibka leh ayaan ka cuni ogahay cuntada qudaarta leh so maxaan dhahayaa yemeklerinden daha çok seviyorum ama eed yemeklerin sebze yemeklerinden en çok yiyorum waan dhihi karaa en çok yiyorum so en çok aan ka dhiga halkan en çok yiyorum so wax cuntada aan aadka u cuno waxay noqonaysaa bahalkii kanay noqonaysaa so maadaaba oo laba isim yahay dan daha waa inaan isticmaalaa maadaaba laba isim yahay so maaha ama saasna waa ku dhaaf karaa so maxaa imaanaynaa lambarka 9aad Fan Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür Fan Gölü meesha la dhaho gulu maxaa la dhahaa so Fan Gölü waa meelaha oo yani oo biyaha ku jiraan oo buuraha iyo buuraha dhexdooda meelo biyo leh oo biyo fadhiyaan oo maasha Allah aad u qurux badan ay jiraan waxaa la dhahaa gulu so Fan Gölü waa magac yani meel magaceed so Fan Gölü meesha la dhaho oo yani biyaha fadhiyaan oo dalxiiska loo tago meel qurux badan oo loo dalxiiso masala haddaa sawir ahaan inta ku tuso Fan Gölü Fan Gölü waa meelahan ujeeda meelahana la dhahaa meelaha aadka u quruxda badan oo lagu dalxiiso oo meelaha waa ka buurta biyaha ku dhex jira meelaha biyaha fariistaano yani aadka u quruxda badan ayaa Fan Gölü meeshaan la dhahaa waa meel Turku taalo dalxiis loo tago Fan Gölü biyaha fadhiyaan aad u qurux badan tahay gulu bis haddaan qoro Fan hadda waa meel magaceed halka yaba laakiin gulugan waa meelahan soo ma jeedin meelahan biyaha fadhiyaan oo aadka u qurux badan arag biyaha ku jiraan dhinac waa buuro marka waa kuwaas meelo dalxiis ah waa kan aad u qurux badan so hope inaa fahanteen then maxaa la dhahaa Fan Gölü meesha la dhaho dalxiiska loo tago oo biyaha fadhiyaan Türkiye'nin en büyük gölüdür waa meesha ugu weyn Turkiga Türkiye'nin en büyük gölüdür waa meesha Turkiga ugu weyn oo biyo fadhiistaan so maxaan dhahaynaa haddana maxaa imaanay lambarka 10aad muxuu sheegayaa Ben en çok komedi filmlerini seviyorum waxaan aad u jeclaa aniga Ben en çok komedi filmlerini seviyorum waxaan aniga aadka u jeclahay waa filmaanta oo maxay ahayd oo shactarada ah comic waxa la dhahaa shactaro waa comedian English comedian so comedy filmlerini seviyorum waxaan aadka u jeclahay waa so maxaa la dhahaa inta demek senin ve Berna'nin fiziksel özelliklerini bakalım waxaan fiirinaynaa muuqaalkooda guud örnekleri karlaştırmaları yapalım sidii örnekyadan aan kusoo barnay oo isbarbardhiga aan sameeyna masala Demet yaashkeedu waa 18 jirtaa Selinna waxay jirtaa 16 Berna'na 19 jirta labadooda tana ugu weyn sooma dhirkeeda tan waa 170 centimeter tanna waa 160 tanna waa 125 kilogooda tan waa 58 saç timahooda sarı uzun tan maxay leedahay sarı timo oo ah timaha noocaas la dhahaa yellowga jaalaha oo kalarkaas leh cadayska oo jaalaha sarı waana uzun waana dheereeyeen because kuwan aad u gaagaamin soo jeedtana xogaa yara timo dheer indhaheeda waa mavi waa blue pias
kalarkeedana waa cadaan biyaas 10 haddaa aragto waa kalarka qofka silina dhirirkeeda 1 kiilo kan ahaa timaheeda waa siyaah waana kisa way gaaban yihiin siyaah kisa goos indhaheedana kahavarangi waa kafee indha kafee leedahay brown ah ay leedahay piyaas wayna caddahay waxaa kuu soo haray waa midaan ugu yar yacan oo dhexda ku jirto waxaa kuu soo haray tan geeskan ah waa 18 ay jirtaa dhirirkeeda waa 125 kiiloogeeda waa 58 such kahavarangi iyadana waa qaxwi because labadoo isku timi igayso ma jeedid oorta mana dheero waa iska dhir dhexdhexaad ah soo maadaama timaheeda ma dheera waa kuwaanaha then maxaa la dhahaa yashil indhaheedana waa green yashil ten kalarkeedana waa budaay yacni aad uma cadda waa tanaa budaay guduud yaraa ku jira soma soo halkaa maxaa lagu qorayaa isbarbardhigkooda مثلا example inoo qabin ama hal ornig waxay dhahan silin dameed faya beerna labadooda markii loo eego dan dahaa genj way ka yartaa soo tan ugu yar waa tan silin waa middaa yartaa because inay yarta maxaa ku faana 18 ay jirtaa مثلا waxaan dhahaa tanaa ugu weyn waxaan dhahaa beerna silin faya dameed dan dahaa yashli aan dhahaa مثلا lambar 2 oo kale hadda ka shaqeyno تنبيه 21 مع مقرأ مثلا وان حرادوني اوتوماتيك تقصو maxaan dhahayaa masala gabadhan ugu weyn soo qaadanaya beerna siniin iyo dameed ay ka weyntaa soo maxaan dhahayaa beerna koma aan dhahaa marka beerna demet demet insaan qornada jecla howha demet waa saxana demet fea silin silin dan daha yashli way ka weyntaa yani yashli way ka weyntaa so number kale oo ka shaqeyso maaha maxaan dhahay dan silin dan daha yashil yani way ka weyn tahay yash because way ka da'weyntaa dan maxaan dhahay qofka ugu dheer waa qofkee qofka ugu gaabanse waa kee so waxaa ugu gaaban gabadhan waxaan dhahayaa silin way ka gaabantaan dhahayaa silin aan dhahayaa demet fea beerna dan midka ugu dambeysa markasta danta qaadanaya dan dahaa kiza way ka gaabanta dan dahaa kiza sorry intoo kale dan dahaa yasha yash waa weyn soo maha yasha ama yash then lambarka saddexaad marka kale oo kan 1 2 3 maxaan wadban afartaan aan ka shaqeynaa la dhahaa mugtee then maxaa kala sameynayaa masala dhirirka waa sheegnay yaashka waa sheegnay kiilooga waxaan dhahayaa qofkee ugu kiilo weyn masala beerna soo beerna silin fea demet tan maxaan tan u dhahay because inta tia u dambeys tan dahaa kilo dan dahaa what do you call maxaan dhahaye
then daha مثلا waa ka culus tahay ama way ka weyd badan tahay. So مثلا waxaan ka dhigaa inta ayr maadaama uu yahay culays waxaan dhahayaa ayr way ka culus tahay ayr. then maxaa noo dhima hal xabo numberka ugu dambeeya noo dhiman. So waxaan dhahayaa maxaas barbar dhigaa مثلا dhirirka. So maxaan dhahayaa dhirirka waan sheegay مثلا qofka ugu dheer labadooda saddexdooda waa kee waxaa ugu dheer 175 aa ugu dheer. So waxaan dhahayaa Berna aa ugu dheer Berna Selin Fair Demet Tan Daha Uzun. ama waxaa dhihi karaa مثلا Daha Uzun waa dhihi karaa. So tay ugu dheer waa midda. So hal hadda waxaan sameynay keliya then daha aan sameynay ama n ma aana sameynin. So maxaan dhahayaa مثلا waxaan rabaa inaan dhaho gabadha ugu yar. So maxaan dhahayaa مثلا yaraan Selin engage kisdir مثلا Selin engage ayada ugu yar sooma meesha engage kisidir engage kisidir waa gabadha ugu gaaban meesha ugu yar meesha مثلا yaa ugu gaaban ayadana ugu gaaban ama yaa ugu dheer مثلا Berna ugu dheer. maxaan dhahayaa Berna anoo macnaha n isticmaalaya Berna n uzun kisidir waa gabadha ugu dheer meesha ayada ugu dheer soma مثلا ayadana ugu kiilo badan. marka saas aan dhihi karaa oo kale intaas kusoo gabagabeynaa insha allah. مثلا kabo maxaa dhahay timahoo kale daan fiiriyo uzun tan waa kiza kana waa orta. so gabadha ugu timaha dheer waa tee Demet. so maxaan dhahayaa Demet maxaa dhahay n uzun sac Demetir gabadha ugu timaha dheer waa Demet n uzun. مثلا waxaan dhihi karaa n uzun sac Demetir n uzun kishi haddaan dhahdana n uzun kishi Demet qofka ugu dheerna waa Demet tir. so dir iyo tir wax kala bedelan yihiin taada u dambayso n uzun engage waa dhihi karaa engage kizi Bernadir waa dhihi karaa oo kale. so waan soo hormarin karaa waana daba marin karaa waxba problem ma laha yani as long oo aan enta isticmaalayo. مثلا Turkey en kalabalık şehir saas sameyn karta. marka insha allah hope inaa fahanteen kuma sii dheeraanaya saacaddaa dheeraanayso insha allah next timeka diliimahan iyo waxaa suubinayna next time inaan dhameynaa rajeynaa insha allah diliimahan ukumahan iyo qaybtan nalaal orandeg. soo cashirkan hal cashir bisaa ka dambeyn doona insha allah oo ku dhamaystiri doono halkaa cashirna aan ugu dambeyn doono. soo hope cashirkan inaa fahanteen isbarbardhigga ah marka laba shay la isbarbardhiga iyo markii shayga oo mid awoodda la saarayo asaga wax walba ugu sareeyo. hope inaa fahanteen fadlan haddaan ugu cusubta subscribe feedback gasha like saar asxaabtaada la share garay haddii aan nagu cusub tahay waa ku maasan tahay haddii aan nala joogtana waa ku maasan tahay sidoo kale soo dhow haddaa cusub tahay. cashirka inta kusoo gabagabeynaya isoo dacay taxanaadaan leeyahay laftirkeyga arday aa iska ogtihiin bc-ga iska badan haddana wax isdhahaya wax casharadu iga codsateen u boobsiina waa isdhaha ayaga way taxaanaynayin. so insha allah sidaas inta kaga tagaa nabadgelya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gurushmeeku saree.